isku dhacyo hubaysan ayaa wali waxay ka soconayaan xaafado ka tirsan degmada Kaaraan kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo doonayay inay tutumiyaan xaafada Buulo Axmed Cabdalle ay ku hungoobeen damacoodii ku aadanaa burburinta dadka shacabka ah ee ku nool xaafadaasi. dagaal qaraar oo xalay saqbarkii ka bilowday agaarka degmada Kaaraan si gaaran halka loo yaqaano iskuulka Goday ayaana sababay dhimashada laba shacab ah, dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dad rayid ah sidoo kale ugu dambeyntii ciidamadii halkaasi ku noolaa ay dadka shacabka dhagaxyo u qaateen waxaana wali soconaya burburin xoogan oo ka dhana dhulka ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dowladda Soomaaliya oo dhawaanahan boos u dhigtay heer kulka beegsiga dhulalka shacabka ayaana markan u muuqatay inay mar kale karbuunada u qaadatay sidii ay uga macaashi lahayd dhul shacab oo ku yaala xaafado kala duwan oo Kaaraan ka mid tahay. Maalinimadii shalay ciidamada booliiska gobolka Banaadir sidoo kale dad shacab ayaa sidoo kale isku arkay xaafado ka tirsan degmada Waabari halka sidoo kalena habeennimadii xalay lagu rawaxay degmada Kaaraan gaar ahaan eeriyada iskuul Goday halkaasi weyli waxaa ka taagan xiisad xoogan oo u dhaxaysa dadka shacabka iyo sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska gobolka Banaadir oo garoodonka u yahay Macalin Mahdi Cumar Muumin. si kastoo ahaataba xaaladda ayaa wali kacsan dadka shacabka oo qaarkood aan xiriir kala duwan la sameynay waxa ay ka gaabinayaan xilligan ay bixiyaan faahfaahinta kama dambaysta oo ku aadan ka guurista guryaha ama sidoo kale hadii ay galayaan difaac sida ay ku dhawaajiyeen qaar kamid ah odayaasha dhaqanka oo halkaasi ku dhaqana xiisadda waxaa la filayaa in xal waara laga gaaro inkastoo dowladda Soomaaliya ay horay u diiday inay xal la gaarto dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si gaar ah golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo habeennimadii xalay xaflad wadajir ah xildhibaanadii dhawaan doortay ugu qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale waxa ay ka dhawaajiyeen in arrimaha dhulka heerkulkooda hoos loo dhigi doono. mas'uuliyiinta ku tamashlaynayay hoyga qabowga mukeefku ma arkaan malaha waxa ka soconaya xaafadaha fogfog ee Muqdisho beegsiga iyo sidoo kale dadka sida xun loo gumaadayo. Muqdisho wali waxa ka soconaya xiisadaha dhuldumiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo dadaalay wax ka qabtay arrimaha ammaanka la dagaalanka argagixisada musuqmaasuqa oo yaraaday dhibaatooyin kale oo horay Muqdisho uga jiray oo meesha ka sii baxaya malaha xukuumaddu hadda waxay u xiisad qabtaa soo nooleynta mawjadihii gilgilay amni darrada caasimadda waxaana la filayaa markii dadku ay waayeen wax ay musuqmaasuqa in madaxdii sare ee dowladdu ay markooda dib u soo celiyeen sidii ay dib dhiiga uga baaran lahaayeen shacabka ku nool gobolka Banaadir. xiisadahaasi ayaa soo kordhay saaxiibayaal xoga kaana naga soo gaarana waxay sheegayaan in maanta la isku laaban doono sidoo kalena ciidamada booliiska ayaa saacad walba la fila karaa dadkuna turbabu waxay bilaabeen inay xaafadahooda ka qaxaan. dagaalkii xalay saqbarkii ka bilowday xaafada Buulo Axmed Cabdalle ayaana wali aan si toos u joogsan iyadoo ciidamada booliiska Soomaaliya saacad walba soo weerari karaan dadka ku nool xaafadaasi.